aad baan u faraxsanahay sharafna tahay ii tahay in maanta aynu goobjoog ka nahay furitaankii baankoorka iyo dhagax dhigii baanka dhexe waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay horumarinta baanka iyo dhismaha hay-adaha ama financial institutionska oo fara badan private iyo publicba hadalka intii aan oran lahaa waa la wadayay weliba waxa maanta si fiican oo sharxo aanan hore u soo aqoon inankii gudoomiyaha baanka ahaa oo runtii si wacan u dhigay hawsha ay qabtaan iyo miisaanka ay ku leeyihiin qaranka baanka madaxa bannaan iyo shirkadaheeda goobo badan baan ka sheegaa laakiin detailka uu sheegay iyo isfaha hoose ma galo oo waqti u helo waxaan halkaa ku gaadhnay waa wadajir iyo yoolkeena oo midaysan maanta haddii aynu eegno inta baananka saddexda qodobe aynu ka dhagax dhignay iyo inta la furaayo maanta waxaa ka mudan oo qaranku xuseeyaa 17 Oktoobar dagaalkii oo ku dhintay 6 oo ka mid ahaa asaasayaashiisa ragga maalintaa tirada yaraa ee halkaas dagaalku uga bilaabay hamadii ay lahaayeen iyo ujeedadii ay naftooda u hureen ayaynu maanta ku dhisnay qaranka dhan ee taagan ee aynu u bogayno oo inagu wada waajibaa inaynu iyaga uga abaal celinno in aynu xajino arrinkii ay u dhinteen oo ahaa qaran Somaliland oo adduunka ka mid ah oo madax bannaan oo xorriyadiisii lixdii la soo noqday iyaga iyo kumanaan kale taas oo dhintay taasana maanta la xusaabo maantii shahaadada maanta waa alxamdulillaah halka aynu marayno iyo wanaagga aynu hayno markaan soo koobo waxaynu ku sii hayn karaynaa waynu ku horumarin karaynaa in aynu sidii raggii hore u yidhi nabadda ku faraacdayno dowladda mar walba dowladda joogtaa waxay gacmaha isku geysaa waa nabad waxaanan ka rajeynayaa in aynu dhammaantaa shicib iyo dowladba gacmaha isku geyna nabaddu waxay leedahay laba cadow waa ka dibadda kaaga soo duulaya ee nacab jiritaankaaga ee diidaya horumarkaaga iyo wax badan naanidaada kaa waa inaynu u midownaa oo aan shaki inaga dhexgala dhexdeed ka labaad waa ka laguu soo dhex tuuro ama taladu ka xumaato ee dhexdeenna ka abuura xaalad nabadgelyadu khalkhal geli karto saddexaad ra'yiga u geyn karaa inay nabadgelyo dhexdeena la weeraro mid waa duqaniimo qof caqli gaaban oo wax yar ka fikiraayo oo arkayn danta guudba aan wada arkayn midna waa nin cadow soo adeegsado oo kula mida oo aanad garanayn laakiin fikradda qaranka Soomaaliland diidan kula midaho kula aqoon oo aad u daro ka aqoon badan oo ka khibrad badan oo adoo yahay fariid laga yaabo intelligent yahay kolba si ku dhigaya si uu khalkhaliyo qarannimada aynu soo midna waa nin damc siyaasadeed oo kaasi kala weeyahay wax wal oo qaranka jiraaba hadduu horta aan gaar aan waxa doonayaa aan ka noqdo saddexdaaba waariyo ducaan isku dareenaayo waxaan leenahay war marka hore waxyaalaha dastuurka ku qorannay ee dantayno awal dhowr maxaa ka mid ah qaranka Soomaaliland in difaaciisa loo sameeyay in dalka la wada leeyahay in muwaadinku leeyahay waajibaad xuquuq isagu leeyahay iyo waajibaad isaga lagu leeyahay dastuurkuna ugu cadda waana ka ilaalinaya diinta islaamka mooyaane waxaa kaloo ka mid ah qodobo la taabtaan waxaa ka mid ah qaranka Soomaaliland ka noqoshadiisu waa la taabtaan codayn dadka oo dhan mooyaane baarlamaanna ma goyn karo madaxweyne ma geli karo waxaa ka mid ah diinta islaamka inay saldhigga shuruucdooda tahay madaxweyne ma bedeli karo golayaal ma bedeli karaan qarankoo dhan baa arrintaasi u maraysa waa labo waxa ka mid ah
dhammaan intay Soomaaliland jirtay intii qarannimadeeda u soo halgantay ee u hawl gashay dhiig loo daadiyo maskax qoraal af wixii u soo dhibtooday ama ku dhintay oo dhanna hordhiciisa dastuurka soo tiriyay halgankii hablaayo oo ugu dambaysa kii asrab waxa iyana mamnuuca dadka naftooda u soo horay u soo dhibaatooday ee awoomahoodii ciidaa ka badayna jooga ee maanta asrabta ugu dambaysay in qof dalka jooga oo yiraahdo maalinta la xusaya annagu dhulkaan xaadnaado ma ciisin waxa kamid ah in la yiraahdo asrab ma naqaano waxana loo tarto oo waliba la caado toddobaadkii maanta waxa jooga maanta burcaduuray laga bilaabo dagaal dastuurkii mamnuuc ka tahay marka waxyaalaha in la ilaashana waa faral qoladayada maanta tartamaysa waxa nagu waajiba waa fariiqan kan wadanaya wax walba inay meel dhigaan horta nabadda ku keenada haddii tartanka xisbiyadu uu waxyeelo inoo leeyahay oo qaranka khalkhal gelinayo yaa qabanaya waxa qabanaya acyaanta dalka oo aan maanta erayga wadahay inta halkan fadhiya ku kala markay fidmadu dhacaysana marka hore la qabtaa markay soo bilaabayso maanta ololaha ku jiro waxyaalo badan oo sharciga ku gafa diintana ku gafa akhlaaqdana ku gafa ayaa ka socda inta waano iyo isugu tag iyo inta hogaaminaysa doorashooyinka oo iyaga ay ka muuqato akhlaaqda waayeelnimo ee dadka iyo dalka iyo diintaba u daraynaysa inay u tartamaan ayaa ka ah haddaan garaweenkaaga garawaayana inaad idinku tirahdaan hoy joogso waayo ayaan wada mas'uuliyad taasina waa dadka u soo jeedinayo iyo xisbiyadaba tusaale burcashada riyaba ka dhacday ciidii bilood hadday cid aqli xun ahayd waayeelka kale inuu arintaa kol kalaba gacanta ku dhigaabe waayo inta tartamaynay ee nuurigan baa inuu dhawata qabnaa waxaan xariireynay gudoomiye xisbi wasiirka arrimaha gudaha mujaahid in burco gaarigiisii watay iyo kuwii daba socday shiid dagala daaro oo lagu dhaawaco oo gaarigiisa laba dhagax ku dhacaan daaqadu fadhiyay waxay ahayd ragii halkaa jooga waayeelka markaa waa intaa dalo taasaa daahday wixii isaga taageersanaa fal kale oo kasii daran bay fuliyeenoo gudoomiyihii kale murashaxa ahaa xisbigiisa dhinac dhan magaalada ka saaray arrimaha caynkaasi waana soo noqon oo ninkooda howlgalo ilaa natiijada laga gaarayo oo dowladda dib loogu cusboonsiiyo qofkii la doortay waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliland yarka taageerayaasha ah siyaasiyiinta tartanka wada in aad iyo aad loo qabto wax kasta oo abuuri kara fidmeer wixii ka dhacda dhammaan odayaasha laga hadlay inta yiraahdeen baan ku raacsanahay xaaji maxamed saciid maanta aad u kaftooyna aad baan u faraxsanahay waayo waxa joogsan xaaji inta badan mikrofoonka uu ka gagaba jiro ma kaftami jirin laakiin maanta si waayeelnimo iyo saaxiibtinimo uu kaftamay taasina waa inuu gudoon aad iyo aad baan u mahadsantahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.